kulan dhex maray xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga muxaafidka ee kulmiye iyo akademiyada nabadda ayaa saaka ka dhacay xarunta akademiyada waxaana ahaa kulan albaabadu u xidhnaayeen kaasi ay kaga wada hadlayeen sidii loo qaban lahaa dooda qaran ee hore iskugu maandhaafeen asxaabta mucaaradka iyo xukuumadda Somaliland waxaana markii uu kulankaasi soo idlaaday warbaahinta uga warbixiyay kulankan maanta dhex maray afartan dhinac hogaamiyayaasha asxaabta iyo walibana gudoomiyaha akademiyada waxa ilaahay mahadiya maanta saddexdii xisbi qaran inay ka heshiyeen wixii dood ahaa ama hadalkii afdhaafayay ee la isku afgaran lahaa muddadan dambe oo dhan ee warbaahinta la gudbinaysay shirar socday dhowr cisho maanta waxaanu gaadhnay dhowr qodob ka koobaad waxaanu ku heshiinay saddex xisbi haddii aanu nahay wixii dood qaran ah ee danta qaran ku jirto ee ummaddu ay u baahan tahay annagoo saddex xisbi qaran inaanu si wada jira u qabanno dooda akademiyada ay noo ahaato cidda noo fududaynaysa ama hogaaminaysa meeshaanu ku qabanno si ay u noqoto dhexdhexaad dooda ka dhex taa waa ku heshiinay waxaanu ku heshiinay qodobada aanu doonayna inaanu ka doodno oo ah guud ahaanna laba qodob oo mid waliba iskii u fasirmaayo qodobka koowaad waxa weeye haddaanu xisbada qaranka nahay inaanu ka heshiino oo aanu meel go'aamo cadad ka gaadhno sidee doorashadiinkii soo socday sanadka dambe 15 madaxweynaha iyo tii baarlamaanka iyo guurtooda ku xigto iyana weli sharcigeed lima yahay inaanu ka soo saarno xal aanu ku midaysannahay oo lagu wada qanacsan saddex xisbiga oo ah in doorashada waqtigeedii idam ilaahay aynu ku qabanno wixii ay u baahan tahay hawlaana aynu sii dhamayno hawlaha hore yaalla way farabadan yihiin laakiin guud ahaan saasaanu qaadanay qodobna u gelin hawlahaas oo dhan ilaahay idamkiina si wada jir aanu soo saari doono qodobka labaad aynu ka doodi doonaa waxa weeyaan isla garanay inaynu ka hadalno ictiraaf raadintii iyo caalamka adduunka Somaliland wixii kaga maqan ka wada doonato muddo 20 sanadooda oo dalkana adduunkana wax badan u taray isaguna wax badan ka qabsaday geeska Afrika oo kaligi in badan dadaalay caalamkana oo wax badan oo caalamiina oo taray nabadgelyada kamid tahay waxaanu soo aragnay in adduunka wax badan aan ka tabanay inaanu wada jir arintaana oo eegno oo ictiraafkeena iyo xuquuqda caalamiga naga maqan wada doonano waxayna arrintaa ka midayno inagoo qaran oo isku mid ah taana waan ku sheegay wargari doona afar maalmood taas waxay ku saacayaan wuxuu baahay misqaalo daraf kala maqnaanshaha asxaabta ay ka dhalaysay tashuushku wasaab shay gudoomiyuu kulmiye arinta waan ku heshiinay alxamdulillah rabbil caalamiin ajindi waa isla garanay doodi qaran waa isla garanay cidii facilitate garanayay cid neutral ka dhigna dhexdhexaada jamci waan ka soo saarnay oo cidiyo magaalada saay wadani iyo madashii waan ka soo saarnay maanta marka cid dhexdhexaada oo noo siman ayaan ilaahay mahad u dhiibnay waxaan jecelahay inaan waliba shirka horti intaan la tagina inaanu saddexda xusbi aan insha Allah taala aan kulano waxay la tahay inay runtii maanta go'aan ka midaysan xisaabta qaranku uu yahay go'aan muddo dheer shacbiga reer Somaliland sugayay faahfaahintiisa iyaga idin sheegay laakiin guud ahaan waxa farxad u ah xisaabta qaranka iyo shacbigaba inaynu isla ogolaanay inaynu doodno oo ka doodno arrimaha aynu hor yaalla ee qaranku leeyahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa haddaan akademiga nahay gudoomiyaasha xisbiyada qaran iyo ragga la socdayba sida fiican ee ay u ajiibeen yeelmadii aanu ugu yeernay halkan iyo gobashii aan loo fidinay runtii si xilkasnimo leh wadaninimo ku jirto laabxaadnaan leh ayay arrimaha idiin sheegayeen oo gudagaleen
doodan qaran ayay hore ugu wareejiyeen asxaabta mucaaradka madasha wadatashiga oo iyadu hore ugu dhawaaqday qabashada shir qaran waxaanay xukuumadda Somaliland qabashada shirkaasi sida fiinta uga qaylisay taas oo keentay isaaf garan waa dhex mara xukuumadda iyo mucaaradka waxaana gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland uu waan ka dhex bilaabay madaxweynaha Somaliland iyo gudoomiyaha golaha wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani shir shalay dhex maray gudoomiyaha golaha wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga wadani iyo madaxweynaha Somaliland ayaa la isku afkartay qabashada dooda qaran oo maamuli doonto akademiyada nabadda kaasi oo meesha ka saaray murankii adkaa ee u dhaxeeyay mucaaradka iyo xukuumadda oo salka ku hayay qabashada shirka oo loo bedelay dood qaran Mukhtaar Ismaaciil Cali Somsa TV Hargeysa